بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. weli waxaan ku dhex jirnaa suuratu ancaam. waxaa noogu soo dembaysay in ilaahay uu yahay allaha samaawaadkii arlada abuuroo xaqnimo ku abuuray, maalinta uu odhanaya kun fayakuun, uuna ahaanaya qowlkiisa xaqa, mulkiga iyo maamulkana maalinta suurka la afuufayo inuu asagu leeyahay, qaybka iyo shahaadadii waxyaabaha muuqda caalimkoodu inuu yahay, allana alla xakiim ahoo khabiira inuu yahay subxaanahu wa tacaala. waid qaala wadkur xus id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim liabiihi aabbihii aazara ahaa uu ku yidhi atattakhidu ma yeelanaysaa oo ma waxaad ka samaysanaysaa aabbow asnaaman, asnaamta miyaad aalihatan ilaahya ka dhigan? innii anigu araaka waan ku arkaa adi iyo wa qowmaka qoomkaagaba fii dalaalin baadi inaad ku jirtaan, baadidaasoo mubiinin markaa cad. waxaad xustaa xilli nebi ibraahim aabbihii aazara uu la hadlay, waayo aabbihii asnaamtuu gacantiisa ku qori jiray, sidaa darteed ayuu asnaamta caabudi jiray. ibraahim aabbihii shirkiga ayuu ku dhex jiray, idan wuu wacdinayaa ibraahim, aabbihii buu waaninayaa. waid qaala ay wadkur xus rasuulkii allow id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim liabiihi aabbihii uu ku yidhi aazar ahaa, atattakhidu ma samaysanaysaa aabbow asnaaman, asnaam miyaad aalihatan ilaahya ka dhiganaysaa? innii anigu araaka waan ku arkaa adi iyo wa qowmaka qoomkaagaba fii dalaalin baadi inaad ku jirtaan mubiinin ee markaa cad. wakadaalika saas ibraahim aan u fahamsiinay towxiidka oo kalea nurii u tusinay ibraahim malakuuta asamaawaati, samaawaadka malakuudkooda, malakuudka iyo manashada iyo malakuudka samaawaadka iyo waalardi ka arlada, waliyakuuna inuu ahaado ayaan saa u yeelnay min almuuqiniina dadka yaqiinsan in samaawaadka iyo arlada ilaahay mulkintiisa ay yihiin, ayagu aysan ilaahyo ahayn iyo waxa ku sugan sida xidigaha, bisha, qoraxda, dhulka waxa saaran sida buuraha, sanamada iyo wixii la mid ah, kulli inaysan ilaahyo ahayn, laakiinse malakuudka samaawaadkii arlada inay ilaah u sugnaadeen, waliyakuuna iyo inuu ka mid ahaado ibraahim min almuuqiniina dadka yaqiinsan. falammaa markii janna uu daboolmay calayhi korkiisa alleylu habeenkii, ra'aa ibraahim wuxuu arkay kowkaban xidig, waa xidig ay caabudi jireen. qaala wuxuu yidhi haadaa rabbii, kaasaa rabbigay ah, alla rabbigay waa kanay hadda soo baxay. ibraahim calayhi assalaam caqligooda ayuu rabaa inuu tusiyo waxaan inaysan waxba ahayn. mar allaale markuu mugdiyoobay, falammaa markii janna uu mugdiyoobay calayhi korkiisa uu ku soo daboolmay alleylu habeenkii, ra'aa ibraahim wuxuu arkay kowkaban xidig. qaala wuxuu yidhi haadaa rabbii, kanaa rabbigay ah. falammaa markii afala uu dhacay xidigiina, qaala ibraahim wuxuu yidhi laa uxibu alaafiliin, ilaahyada dhaca ma jecli. mar hadduu dhacay ilaahay ma aha, war hadda wuu dhacay, ilaah hadduu ii ahaan lahaa oo asagoo maqan aan u baahan lahaa xaggeen ka heli lahaa? waa ma jiro. laakiin ilaahay waa alla xayi ah oo qayuum ah. allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khudhu sinatun walaa nawm. saacad walba iyo wakhti walbood u baahataad alla heli subxaanahu wa tacaala. mar allaala markuu yidhi xidigan baa ilaahay ah, falammaa afala, idan markii horeba inuu caqligooda waxgeliye ayuu rabay. qaala wuxuu yidhi ibraahim markuu xidigii dhacay laa uxibu
anigu ma jecli alaafiliina kuwa dhaca, ilaahyada dhaca ma jecli. falammaa markii ra'aa uu arkay haddana alqamara dayixii oo baasiqan soo baxay oo soo muuqday, qaala wuxuu yidhi haadaa rabbii, kana rabbigay ah. kii hore dhacyay ilaahyada dhacana ma jecli, kabaa rabbigay ah. falammaa afala, ilan wax raagaya ma jiree, qamarkii markuu dhacay waa dayixiiye, qaala wuxuu yidhi ibraahiim lain lam yahdinii, hadduusan i hanuunin lahayn, rabbii rabbigay la akuunanna waxaan ka mid ahaan lahaa min alqowmi addaalliina, qoomka baadiyeysanee dhumay. waxaad ka fahmaysaa ibraahiim markuu xidiguna leeyahay haadaa rabbii, qamarkana uu leeyahay haadaa rabbii, inaysan xaqiiqa ka ahayn ee uu hanuunsan yahay, ilaahayna garanayo. waayo mar allaala markuu dayaxii dhacay, qaala wuxuu yidhi lain lam yahdinii rabbii, rabbigayba i hanuuniyey meehee, haddii hanuun alla aanan haysan lahayn, la akuunanna min alqowmi addaalliina, qoomka dhunsan baan ka mid ahaan lahaa. falammaa ra'aa, markuu arkay haddana ashamsa qoraxdii baasiqatan oo soo baxday, soo muuqata, qaala wuxuu yidhi haadaa rabbii, alla kanaa rabbigay ah. haadaa akbaru, kanaaba weyn buu yidhi. kuwii hore dayixii iyo xidigii wayba yaryaraayeene, alla kanaaba weynoo ilaah weyn markaa ah. falammaa afalat, ilaan wax raagaya ma jire, markay dhacday ayadiina waa shamsadiiye, qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qoomkeeyow, innii anigu barii'un, beri baan ka ahay mimaa tushrikuuna, waxaad ugu shariig yeelaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala. innii anigu wajahtu waxaan u jiheeyey wajhiya wejigayga liladii macbuudkii fatara asamaawaati, samaawaadka abuuray iyo waalarda, arlada abuuray, xaniifan xaal aan ahay mid xaniif ah, anigoo xaniif ah oo soo iishay oo ka soo iishay adyaan iyo diin kasta oo baatil ah. wamaa ana, anigu ma ihi min almushrikiina, mushrikiinta mid ka mid ahoo ilaahay u shariig yeelaayo, anigu markaa ma ihi. waxaajahu, waxaa la dooday ibraahiim qowmuhu, qoomkiisii baa la murmayoo juxdi iyo jixaad iyo dood iyo mujaadalay la galeen. qaala wuxuu yidhi atuxaajuunii, ma waxaad igula doodaysaan fillaahi, ilaahay waxdaaniyadiisa, war ilaahay keligiisaa jiraad igula doodaysaanoo diidan tihiin miya? ilaahay keligiisaan caabudayaa baad igula doodaysaan oo diidan tihiin miya? qaala atuxaajuunii fillaahi, waxaal qad hadaanii, uu i hanuuniyey ilaahay, waqad hadaanii uuna i hanuuniyo, inuu i hanuuniyey xaqiiqda ay tahay. walaa akhaafu, anigu cabsan maayo maa tushrikuuna, waxaad ugu shariig yeelaysaan bihi shayga, waxaad ilaahay shay ugu shariig yeelaysaan maba ka baqaayo. ayagaa ku guulguulay, ilaahyaalkeennii maad faragelisay. ibraahiimow adoo canug yara miyaa waxaan la timid, afkaa kaa qaloocan doona, gacantaa kaa go'i doonta, musiibaa kugu dhici doontaa, oo waxyaabaha dadku qabal ka mida ay isticmaalaan. war afka ha ku taagin, canug yar baa taha lagu leeyahay, ma haddaad owliyadii waxyaabihii kala faragashatay, alla waa kuu dhammaatay. saa darteed ibraahiim markay guulguuleen wuxuu yidhi walaa akhaafu maa tushrikuuna bihi, waxaad rabbigay wax ugu shariig yeelaysaan ka baqi maaya aniga, ilaa an yashaa'a, inuu doono rabbii rabbigay shay-an, shay inuu ila doono maahane, wixii igu dhaca xataa waa wax rabbigay iigu tala galay. waasic buu rabbigay kaga noqday kulla shay-in, shay kasta cilman, ogaal. wax walba ilaahay cilmi ayuu waasic kaga noqday. afalaa tatadakkaruuna, miyaadan xusuusanayn? afalaa tatadakkaruuna, kuwa waana qaadanayo xusuusanayo xaqa iyo diinka la u soo noqonayo ma tihiin miya? wakayfa akhaafu, seenu cabsanayaa buu yidhi. wakayfa sidee baan akhaafu uga baqaa maa ashraktum, waxaad ugu shariig yeesheen, waxaad ilaahay ugu shariig yeelaysaan, seen uga cabsanaa aniga? dhagax iyo qori iyo geed iyo bil iyo xidig iyo qorax miyaan ka cabsanaya? oo walaa takhaafuuna, aadan cabsanayn annakum adinku
annakum adinkoo weliba ashragtum shariig yeelay billaahi ilaahay maa shay ugu shariig yeelay lam yunazil uusan u soo dejin bihi maagaa calaykum korkiina sultaanan wax xujo ah. ma idinkaaba dhiiranba oo rabbigay u shariig yeelaya, qori iyo dhagax iyo geed caabudaya. idinkii dhagax iyo qori asnaam caabudaya cabsan weyseene anisee u cabsanaa buu yidhi. rabbigay aan ku kalsoonahay, ilaaha xaafidkee ilaalinta badan, dhib iyo dheef asaga xaggiisu ay jirto. wa kayfa akhaafu, seen u cabsanayaa buu yidhi, seen uga baqayaa buu yidhi maa ashragtum waxaad ilaahay ugu shariig yeesheen, oo walaa takhaafuuna idinkuna aadanu cabsanayn annakum adinkoo weliba ashragtum shariig yeelay billaahi ilaahay maa aad ula shariig yeesheen lam yunazil uusan ku soo dejin bihi maagaa calaykum korkiina sultaanan wax xujo iyo aayad ah. fa ayu lfariiqayni labadeenna qolateeba axaqu ku xaqnimo badan biاlamni amni inay ku noolaato in kuntum taclamuuna kuwa og haddaad tihiin. war qof ilaahay keligii aaminsan, ilaaha nafciga iyo dhibka iyo daarka iyo awoodda wax kasta asagay u sugan tahay qof aaminsan, iyo dhagax iyo geed nin caabudaya, kee ku wanaagsan inuu amni ku noolaado? war labadeenna yaa amni ku aaminsan, waad i guulguulaysaan, waad i cabsigelinaysaan. idinkii asnaamta caabudayaa dhiiran, wax soconaya ma aha. fa ayu lfariiqayn labadeenna fariiqo, labadeenna qolo, idinka iyo aniga, keebaa axaqu ku xaqnimo badan biاlamni amni inuu ku noolaado? in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna kuwa og, aladiina kubi aamanuu rumeeyey oo walam yalbisuu aan dheehin, aan ku dhex darin iimaanahum iimaankooda bidulmin dulmi aan ku darin, ulaa'ika lahum اlamnu kuwaasaa amni u sugnaaday, wahum ayagaa ah muhtaduuna kuwa hanuunsan. ilaahay baa ka jawaabay dadka labada qolo amniga ku noolaanaya. dadka amni inay ku noolaadaan adduunka loo qadaree loogu talagalay aladiina aamanuu kuwii rumeeyey oo walam yalbisuu aan ku dhex darin ku dheehin iimaanahum iimaankooda bidulmin dulmigan shirki baa loola jeedaa. ulaa'ika lahum اlamnu kuwaasaa amni u sugnaaday, kuwaasaa amni ku noolaanaya, kuwaasaa adduun iyo aakhiraba amni ku jira. waa muwaxidiinta rabbi keligii caabuday, shirkina aan ugu darin. wahum ayagaa muhtaduuna ah kuwii markaa hanuunsan. aayaddan markay soo degtay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun. saxaabadu waxay dhaheen yaa rasuula allah ayunaa lam yadlim, keeneen wax dulmin, kee annaga naga mid ah oon dulmi ku jirin ama dulmi aan gelin? amni waan ka fognahay bay ula jeedaan. miyaadan maqal buu yidhi rajulkii saalixa ahaa qowlkiisa, ina ashirka la dulmun cadiim. dulmiga la sheegaya waa shirkiga. walam yalbisuu aymaanahum iimaankooda aan ku dheehinoon ku darin bidulmin ay bishirkin, ulaa'ika lahum اlamnu kuwaasaa amni ku sugan. wahum ayagaana muhtaduuna kuwii hanuunsan ah. wa tilka taa xujatunaa xujadeennii weeyaa aataynaaha aanu siinay ibraahiim calaa qowmihi qoomkiisa dushiisa uu ku xujaystay. narfacu kor baan u qaadnaa darajaatin man darajooyinkiisa nashaa'u aan doonno. ina rabbaka rabbigaana xakiimun alla xikmad badan waaye, caliimun ee cilmi badan subxaanahu wa tacaala. taasi waa xujadeeni inuu saa u xujoodo, uu saa wax ugu bayaaniyo. aataynaaha ibraahiim aan siinay calaa qowmihi qoomkiisa dushooda aan ka siinay. narfacu waxaan kor u qaadnaa darajaatin darajooyinka man nashaa'u qofkii aan doonno darajooyinkiisa yaan sare u qaadnaa. ina rabbaka rabbigaana xakiimun alla fal fiican waaye, caliimun ee cilmi badan. wawahabnaa waan u hibaynay lahu ibraahiim waxaan u hibaynay isxaaq ayaan u hibaynay iyo yacquubna waan u hibaynay buu yidhi ilaahay. wa kullan ku kasta oo isxaaq iyo yacquub ka mid ah hadaynaa waan hanuuninay. wa nuuxna hadaynaa waxaan u hanuuninay oo aan hanuuninay min qablu horay. wa min duriyatihi ilmihiisana waxaa ka mid ah daawuuda, nebi daawuud, wa sulaymaana nebi sulaymaan, wa ayuuba
nebi ayuub wa yuusufa, nebi yuusuf wa muusa, nebi muuse iyo wa haaruuna, nebi haaruun, wakadaalika sidaasaan najzii u abaalmarinaa almuxsiniina kuwa muxsiniinta, wa zakariya ka mid ah, wa yaxya, nebi yaxya iyo wa ciisa, nebi ciise iyo wa ilyaasa, nebi ilyaas, kullun ku kastoo ayay ka mid ahna min asaalixiina kuwa saalixiintee suusuuban bay ka mid ahaayeen, wa ismaaciila, ismaaciil baa ka mid ah, walyasaca, yasac baa ka mid ah, wa yuunusa, nebi yuunus baa ka mid ah, iyo wa luutan, nebi luut, wa kullan ku kastoo ayay ka mid ahna fadalnaa waan fadli siinay oo waxaan ka kor qaadnay cala alcaalamiina caalamka dushii. wafadalnaahum waxaan ka fadilnay buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala cala alcaalamiina caalamka dushiisa, wa min aabaa'ihim aabbayaalkood iyo wa durriyaatihim carruurtooda iyo wa ikhwaanihim walaalahood iyo wajtabaynaahum kuwii aan dooranay oo wahadaynaahum aan hanuuninay ilaa siraatin jid xaggii, jidkaasoo mustaqiimin markaa toosan. aabbayaalkood waxaa ka mid ahaa iyo carruurtooda iyo walaalahood iyo kuwii aan dooranay oo wahadaynaahum waan ku hanuuninay oo aan ku hanuuninay ilaa siraatin jid intii ka ah, jidkaasoo mustaqiimin markaa toosan. daalika ka hudallaahi ilaahay hanuunkiisa waaye, yahdii bihi wuxuu ku hanuuniyaa man yashaa'u qofkii uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa markaa ka mid ah ayuu ilaahay ku hanuuniyaa. daalika arrintaa lasoo tilmaamay ee lasoo sheegay, hudallaahi waa ilaahay hanuunkiisa, yahdii wuu ku hanuuniyaa bihi kaasi man yashaa'u qofkii uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah. walow ashrakuu hadday shariig yeeli lahaayeen dadkaa qiimaha badan ee rabbi doortayee lasoo tilmaamay ee ilaahay uu soo tiriyey nebiyaalkaa qiimaha badan ahaa, walow ashrakuu hadday ilaahay u shariig yeeli lahaayeen, la xabita canhum waxaa xaggooda buri lahaa maa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal qabta. waayo shirkigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha camalka buriya. camalkaagu hadduu camal saalix ah oo fiican oo wanaagsan oo khayr leh uu yahay, intaa kadib shirki iyo waxyaabo kale aad ku darto, camalkaagu waa buraya. sidaa darteed buu ilaah leeyahay subxaanahu wa tacaala, walow ashrakuu hadday shariig yeeli lahaayeen, la xabita waxaa buri lahaa canhum xaggooda maa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa markaa camal fala. waxay camal qabanayeen oo dhan baa buri lahaa sidaa darteed baa shirkiga camaladuu burburiyaa. waxaa noo imaan doonta in rasuulka la leeyahay, walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain asharakta layaxbatanna camaluka. haddaad shariig yeeli lahayd nebi muxamedow, camalkaaga waa burburi lahaa, aakhirana kuwa khaasiriintaad ka mid noqon lahayd. idan shirkigu aad buu u dhib badan yahay. walow ashrakuu hadday shariig yeeli lahaayeen, la xabita waxaa buri lahaa canhum xaggooda maa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal qabta. ulaa'ika kuwa aladiina kuwii waaye aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabkii aan siinay, waalxukma xukum ayaan siinay, iyo waalnubuwata nebinimo. ee fain yakfur hadday ku kufrin lahaayeen bihaa kaa kitaabkii iyo xukumkii iyo nebinimadii, haaulaa'i kuwa hadday ku kufrin lahaayeen, faqad wakalnaa waxaan u wakaalanay bihaa ayada qowman qowm oo laysuu aan ahayn bihaa kaa bikaafiriina kuwa ku kufriya. hadday ayagu ku kufrin lahaayeen oo towxiidkii iyo wixii la amray iyo kitaabkii wixii la siiyey ay ku gaaloobi lahaayeen, fa in yakfur biha hadday ku gaaloobi lahaayeen kaa la siiyey, haaulaa'i kuwa lasoo tilmaamay, faqad wakalnaa waxaan u wakaalanaynaa oo aan u wakiilan lahayn bihaa
tawxiidkaa iyo arrimooyinkaa iyo waxaa la siiyey oo dhan qowman qoom kale ayaan u wakaalan lahayn buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala laysuu aan ahaan lahayn bihaa kaa bikaafiriina kuwa markaa ku kufriya qolo kale oo aan ahayn kuwa ku gaalooba ayaan markaa u wakiilan lahayn ulaa'ika kuwaasi aladiina kubii waaye aataynaahum aan siinay ulaa'ika kuwaasi aladiina kubii waaye huda allaahu ilaahay uu hanuuniyey fabihudaahum muqtadih hanuunkoodu ku dayo iqtadih rasuulkii allow ku dayo kuwa waa kuwuu ilaahay hanuuniyey tawxiidkaa lagu hanuuniyey iyo khayrkaa lagu hanuuniyey iyo kitaabka wuxuu sheegaya raacitaankiisaa lagu hanuuniyey ulaa'ika kuwa aladiina waa kuwa huda allaahu ilaahay uu hanuuniyey fabihudaahum hanuunkooda iqtadih ku daya rasuulkii allah qul waxaad dhahdaa laa as'alukum idin su'aalan maayo calayhi calaa tabliiqi alxaqi xaqaan gaarsiintiisa idinku su'aalan maayo ajaran ajar ma idinku weydiisanayay in huwa maa huwa qur'aankuna ma aha ilaa dikraa waana maahane oo lilcaalamiina uunka oo dhan waana markaa u ah waa dikri waa waano waa caqli celin waa caqli iftiimis uunkoo dhan markaa u ah wamaa qadarullaaha ilaahay ma aysan weynaynin oo ma qadarinin xaqa qadarihi weynayntiisii qadarintiisa xaqeeda id wakhti baysan alla qadarinin qaaluu ay dhaheen maa anzala allaahu ilaahay maba soo dejinba calaa basharin bashar iyo bani aadam korkii min shay-in shay uu ku soo dejiyey ma jiro qul dheh man anzala yaa dejiyey alkitaaba kitaabkii yaa soo dejiyey alladii kitaabkaasoo jaa'a bihi uu la yimid muusaa nebi muuse nuuran nuur xaal uu yahay iyo wahudan hanuun linnaasi dadkana nuur iyo hanuun u ahaa tajcaluunahu oo aad yeelayseen qaraatiisa waraaqooyin tubduunaha aad muujinayseen wa tukhfuuna kaiiran in badanna aad markaa qarinayseen yaa soo dejiya kitaabka yaa nebigaa soo diray markaad leedihiin bashar ilaahay rasuul ka dhigay ma jiro rasuulkii allow su'aashaa weydii bal waxaad weyddiisaa yaa soo dejiyey kitaabkii nebi muuse lagu soo dejiyey nuur iyo hanuunna ahaa dadka nuur iyo hanuun u ahaa yaa soo dejiyey kitaabkaasoo aad yeelayseen qaraatiis iyo waraaqooyin aad ku qorayseen xaqiiqnimadaa loo tilmaamayaa kitaabkii idinka laftigiina intaad soo qabateen aad waraaqaha ku qorayseen yaa soo dejiya kitaabka nuuran wahudan nuur iyo hanuun linnaasi dadka u ahaa tajcaluunahu oo aad yeelayseen qaraatiisa waraaqooyin bay qayb ka mida intay ku qoraan qayb badan bay ka tageen dadka waxay rabaan bay tusayaan wax badanna way ka qarinayeen tubduunaha aad muujinayseen kitaabkii aad qorteenee qaraatiista aad ku qorteen wa tukhfuuna aadna ka qarinayseen kaiiran in badan wa cullimtum waxaa laydin barbaray maa shay lam taclamuu aadan ogayn oo aadan aqoon antum adinka iyo walaa aabaa'ukum aabbayaalkiinba idinka iyo aabbayaalkiin waxaydan horay u aqooninna laydin baray qul waxaad ku dhahdaa rasuulkii allaahu ilaahay baa soo dejiye subxaanahu wa tacaala jawaabba ha ka sugin ee jawaabta sii waxaad dhahdaa allah ilaahay ayaa soo dejiyey dheh humma ka bacdina darhum isaga tag fii khawdihim baatilkooda dhexdiisa uga tag yalcabuuna ayagoo ciyaarahaya baatilkooda dhexdiisa uga dhex tag ayagoo ciyaaraya ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala iyagoo ciyaarayo markaa dheedheelahaya oo xaqa iyo diinkaba aan markaa rabin wuxuu ilaahay tilmaamayaa inaysan ilaahay weynaynin weynayntiisa xaqeeda wakhti ay dhaheen ilaahay maba ku soo dejinba id qaaluu maa anzala allaahu ilaahay kuma soo dejin calaa basharin bashar korkiisa min shay-in shay qul dheh man anzala alkitaaba kitaabkii yaa soo dejiyey alladii kitaabkaasoo jaa'a bihi uu la yimid muusaa nebi muuse nuuran asagoo iftiin iyo wahudan hanuunba linnaasi dadka u ah tajcaluunahu
oo aad yeelayseen qaraatiis iyo waraaqooyin aad ku qorayseen tubduunaha aad muujinayseen wa tukhfuuna aadna ka qarinayseen kaiiran in badan wa cullimtum waxaa laydin baray maa shay lam taclamuu aadan ogeyn ama aadan horay u aqoonin antum adinka iyo walaa aabaa'ukum aabbayaalkiinba qul dheh allaahu ilaahay allaa soo dejiye dheh uma ka bacdi darhum uga tag fii khawdihim baatilkooda dhexdiisa ha dabaashaanee yalcabuuna ayagoo ciyaarahaya wahaadaa midkanina kitaabun waa kitaab anzalnaahu aan soo dejinay waa qur'aankee mubaarakun xaal uu yahay mid barakaysan musadiqun rumaynahaya alladii kii bayna yadayhi hortiisa ahaaday iyo walitundira inuu u diga ummulqura waa maka iyo waman xawlaha waxa gaararkeeda ahaaday ayaa loo soo dejiyey waaladiina kubii yu'minuuna rumaynahayay bilaakhirati aakhirana yu'minuuna waayo kuwa rumaysan bihi kitaabkan kuwa rumaysan oo rumaynahaya wahum ayaguna calaa salaatihim salaadooda yuxaafiduuna kuwa xifdinaya ah waman adlamu yaa ka dulmi badan miman shakhsi iftaraa abuurtay cala allaahi alla korkiisa kadiban been ow amase qaala yidhi uuxiya waa la ii waxyooday ilaya xaggayga walam yuuxa ilayhi shay-un waxnana aan loo waxyoonin waa musaylamat alkadaab ninkii lagu magacaabahayay nebinimada sheegtay ee yidhi sida muxamed loogu waxyoodaa laygu waxyoonayaa dhowr qofood baa jirta xataa intuu nebigu noolaa nebinimo sheegatay dumar xataa qaar baa ku jiray bacdamay xaaladdu saa tahay kuwaasuu ilaahay tilmaamayaa waman adlamu yaa ka dulmi badan miman ruux iftaraa abuurtay ama abuuranaya cala allaahi alla korkiisa kadiban been ow amase qaala yidhi uuxiya waa la ii waxyooday ilaya xaggayga walam yuuxa aanana loo waxyoonin ilayhi xaggiisa shay-un shayna iyo waman mid qaala yidhi sa unzilu waa la dejiyey midlu maa oo kale anzala allaahu ilaahay uu soo dejiyaa laygu soo dejiyaa qur'aan walow taraa haddaad arki lahayd rasuulkii allow id iddaalimuuna wakhtiga daalimiinta ay ku jiraan fii khamaraati almowti meydka khamaraadkiisii maashoodkiisa waa sakaraadkee waalmalaa'ikatu malaa'igtuna baasituu ay fidinahayaan aydiihim gacmahooda oo ay leeyihiin akhrijuu soo saara oo soo bixiya anfusakum nafafyaalkiina alyowma maanta tujsawna waxaa laydinku abaalgudayaa cadaaba alhuuni dulliga cadaabkiisa bimaa sababtii kuntum aad ahaydeen taquuluuna kuwa ku hadla oo dhaha cala allaahi alla korkiisa hayra alxaqi waxaan xaq ahayn iyo wa kuntum ahaashihiina aad ahaydeen can aayaatihi ilaahay aayaadkiisa tastakbiruuna kuwa markaa ku kibra aayaadka alle iskibrisiintaad ku iskibrisiin jirteen sababteeda ku dhadhamiya dulliga cadaabkiisa waxa laydinku abaalmarinaya waa cadaabkan ugu xun ee ugu hownsan bimaa waayana kuntum aad ahaydeen taquuluuna kuwa ku dhahoo ku hadla cala allaahi alla korkiisa hayra alxaqi xaq hayrkii wa kuntum iyo ahaashihiinnii can aayaatihi aayaadkiisa aad ahaydeen tastakbiruuna kuwa markaa ku kibra walaqad ji'tumuuna waanaan la nimid baa xaqiiqo ah walaqad xaqiiqee ji'tumuuna waan idinla nimid furaadaa idinkoo keli ah ayaa loo dhahayaa kamaa khalaqnaakum saan idiin abuurnay awala maratin markii ugu horaysay wa taraktum waxaad uga soo tagteen maa khawalnaakum wixii aan idin siinayna waraa'a duhuurikum dhabaradiinna gadaashooda wamaa naraa arkimayna macakum idinka micigiina shufacaa'akum shufaacadiinnii inay idinla socdaan alladiina kuwaasoo zacamtum aad sheegateen annahum ayagu fiikum dhexdiina shuraka inay idin yihiin laqad taqataca waxaa go'go'ay baynakum dhexdiina xiriirkii idinka dhexeeyaa go'ay wadalla waxaa lumay cankum xaggiinna maakii kuntum aad ahaydeen tascumuuna kuwa markaa sheegtaa
waxaad sheeganayseen oo ahaa waxbay noo tarahayaan, waxbay noo qabanayaan, alla xaggiisay nooga shafeecayaan iyo wixii la mid ahaa oo dhanna maanta ma jiro, markaa wuu lumay. wadalla waxaa lumay cankum xaggiinna maa kii kuntum aad ahaydeen tascumuuna kuwa markaa sheegtaa. waxaad sheegan jirteen oo waxqabadkooda ahna maanta maba lahaayaba. ina allaha faaliqu alxabbi waannawaa. وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.